asalaamu calaykum dowlado qaaradaha ka gudbo ama dowlado dhac laba qaaradood waxaa jira dowlado dhulkooda dhac laba qaaradood arrimo siyaasadeed mid juqraafi ayaa keeni kara in dal dhaco laba qaaradood halkan waxaan kuugu soo gudbinaynaa dowlada ku yaallo laba qaaradood ruushka dowladda caalamka maanta ugu dhulka weyn waxay dhacdaa laba qaaradood aasiya iyo yurub dhulka ruushka wixii bariga ka jira buuraha ooraal waa aasiya wixii galbeedka ka jirana waxaa lagu xisaabiyey qaaradda yurub waana xuduudka kala qaybiyo labada qaaradood arrinka xusida mudan ayaa ah in inta badan dhulka ruushka uu ku yaallo aasiya laakiin inta badan dadka ruushka ay ku nool yihiin qaybta ruushka ee yurub gaar ahaan magaalooyinka sida caasimadda moscow iyo magaalada st petersburg masar dowladda masar waxay ka mid tahay dowladaha dhaca labada qaaradood jasiirad oo ka hasayna ee masar waxay dhacdaa juqraafi ahaan qaaradda aasiya laakiin waa dhul masar leedahay jasiirad oo ka hasayna ee ku taalla aasiya kana tirsan dhulka masar boqolkiiba 6 ayay ka dhigan tahay dhulka masar bad gaarayo 61,000 oo kiiloomitir oo isku weer ah yemen waxaan wada ognahay in yemen ku taalla qaaradda aasiya gaar ahaan jasiiradda carabta laakiin haddii aan dhahna jasiiradda soqatra ee xeebaha soomaaliya u dhow waxay raacsan tahay yemen arrinkaas ayaa ka dhigan in yemen dhacdo aasiya iyo afrika maadaama jasiiradda soqatra ku xisaabsan tahay juqraafi ahaan qaaradda afrika turkiga inta badan dhulka turkiga wuxuu ku yaalaa qaaradda aasiya mandiqada loo yaqaano anadoolka laakiin sidoo kale qaybo ka mid a dhulka turkiga ayaa dhaco qaaradda yurub gaar ahaan mandiqada loo yaqaano balqaanka marinbiyoodka bosfor ayaa magaalada istanbul u kala qaybiya yurub iyo aasiya sidaas darteed turkiga waa dowlad ka gudubta qaaradaha ama dhacdo laba qaaradood aasiya iyo yurub dowladda georgiya ee dhacda mandiqada oorasiya qowqaas waa dowlad yar laakiin marka la fiiriyo meesha ay dhacdo oo ah xuduudka yurub iyo aasiya ayaa lagu xisaabiyaa dowlad dhacdo laba qaaradood ama ka gudubta qaaradaha inkastoo dhulka georgiya uu aad u yaryahay haddana qayb yaroo ka mid ayaa waxay dhacdaa aasiya qaybna yurub sidaas darteed waa dowlad ka gudubto qaaradaha kazakhistan wadamada muslimka dalka ugu dhulka weyn bad gaaraya 2,700,000 oo kiiloomitir kazakhistan waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay qaarad waa dal dhaco inta badan aasiya waqooyiga aasiyada dhexe laakiin sidoo kale qayb ka mid a dhulkeeda ayaa dhaco qaaradda yurub dhulka kazakhistan ee dhaca galbeedka webiga ooraal waxaa lagu tiriyaa inuu dhaco qaaradda yurub oo dabcan waa dhul ku yaallo qaaradda yurub xitaa haddii aad fiiriso kubad ahaan xulka kubadda cagta ee kazakhistan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay xulka ciyaaro qaaradda yurub oo wuxuu ka ciyaaraa saan wada ognahayba yurub dowladda azerbaijan waa dowlad dhacda oorasiya ama xuduudka kala qaybiya yurub iyo aasiya mandiqada qowqaas qayb dhulkeeda ka mid ah ayaa dhaca aasiya qaybna yurub sidaas darteed inkastoo ay tahay dowlad aanan weynayn waa dowlad lagu xisaabiyo dowladaha qaaradaha ka gudbo